wargelin muhiim ah dhammaan macaamiisha Xayaat Market waxay ugu bishaaraynaysaa in sanadkan cusub inay markaas soo kordhiyeen suuq jimca oo ah suuq markaasi lagu faa'iideynayo macaamiisha maalinka jimcaha si ay markaasi ay u helaan adeegyadii markaa jimcada loo baahnaa haddaba adeegyada jimcada markaasi loo baahan yahay ee Xayaat Market ay ku sameysay qiimo dhimista maxay yihiin maxaase markaasi ku jira aan daawano qaybaha qiimo dhimista lagu sameeyay waxa kamid ah qaybta qudaarta sida u jeedaan waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 20% waana maalinka jimcaha kaaliska jimceyso sidoo kale qaybaha kale Xayaat Market qaybta markaasi suuq jimca ay ku sameysay qiimo dhimista waxa kamid ah halkan aad u jeedaan waa qaybta hilibka waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 17% sidoo kale waxa ku jirta qaybta chicken-ka ama sidoo kale digaagii iyana waa 17% ayaa lagu sameeyay qiimo dhimis waa kaaliska jimceyso oo hilibkaagi digaagaagi ku jimceyso sidoo kale qiimo dhimista waxa lagu sameeyay qaybta macmacaanka maadaama suuqan uu yahay suuq jimca waxa markaasi Xayaat Market ugu talagashay macaamiisheeda in maalinka jimcaha si fiican loo jimceysto waxaana Xayaat Market ay ku sameysay qaybta macmacaanka 20% sidoo kale qiimo dhimista Xayaat Market sanadkan cusub iyo macaamiisha waxay ugu talagashay oo suuq jimca oo sanadkan la soo kordhiyay waxyaabaha qiimo dhimista lagu sameeyay ku guda jirnaa waxa kamid ah cabitaanada markaasi yogadka sida markaasi labada og yahay waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 20% adiga iyo caruurtaada iyo familka guud ahaan qoyska oo dhan wuxuu noqonayaa mid markaasi ku wada farxaan macaamiisha Xayaat Market iyo qiimo dhimista suuq jimca waana yogadkii iyo qaybaha kale Xayaat Market oo qiimo dhimista ay ku sameysay waa kaalay iska jimceyso qaybtan waa qaybta nasinada Xayaat Market ee Cafe Castello oo Xayaat Mall markaasi ku dhaxtaal waxa lagu sameeyana qaybta cabitaanada shaaxiga iyo kubishiinkii qiimo dhimis 20% haddii aad imaado maalmaha khamiista iyo jimcada oo ah barnaamijka cusub ee Xayaat Market iyo suuq jimca oo sanadkan markaasi ay soo kordhisay waana kaalay ka faa'iideyso suuq jimca iyo Xayaat Market oo ku jimceyso qudaartii hilibkii cunooyinkii fududaa iyo sidoo kale qaybtii markaasi macmacaanka waa jimcada iyo ku jeestay xaafadaada